قصة طريفة يا بريان لو ريتشيا وهذا كورنا ترجمة الشيخ كآخر الشيخ الباني وذلك عدنان عرعر لو ننجري وحكى الشيكي ما مضي حاسك ويناي الشيخ الباني وحاسكون على الشيخ حنا سيدنا الباني شيخو مرتب بدن بولها أصحاب بدن بولها دليل يدبر لوجا إيمانيي مكتبات وين ومساجد بكوين بوهايستي نظافين نظافيو لجوجلو مرتدي الله صورو وحلو كريو لقابلو عليس بيجواد كل نقط وانا وينها تمام مدي ايدي شيخي بقى اسقبتي او شو وقت كات صلحي بقى الله قبه هذا ان لا نحكله عدنا عرور الشيخ اردقي سابا لو ينا كان نحكل ايدي وحكوه مري ما مدي بودا هذا الحاسكي شيخ بودا هذا شيخ البان وحنا قول انا مدعي ودب شيغانايه ايضا مدعى عليه انا هورت هذا يقول بالله ما يوحول غبدان كو بلاابايا حكم بعد غدغتين قرت ايدا شيخو حروبي بقى النقطه ارضا النقطه قرت انيغا ايدا سو حكم ميها حربانا ايضا كبلاابايا هذا هو ظلمي صح هذا يليني وين كدخبحايا ما يبلود بوري ارضي اندادا بود نقطه gabadhi baa hadashay gabadhi warkii markay dhamaysay iyo cadnaan curcur wuxuu yiri sheekh albani oo dhaalim baata oo ma ana dhaalima hadaan iga dhageyso waxa la rabaa inaad muddaciga dhageysato hal dhinacun baad dhageysatay goormaad xukuntaa waan ku xukumay dhaalim baatay saa xukunku ku qaadan soo aan ka taga waan qaatay buur maxaad xukuntay laakiin waxaan xukumay gabadha waa dulantay shaqaysa ka bixi karin baad la timid hawlo badan baad la timid ina caawisana waa diiday waxaan kugu xukumay xaas labaad inaad guursato oo maamada caawiya maktabada iyo martida soo dhaweynteeda iyo shaqaalaha iyo hawlaha qabata ayaduna guriga iyo carruurta waaweyn ha ku ekaato dhaalim baad hawl ka badan baad ku mashaqaysay maamadii gabar yar wanaad keento islaanti masayr baad taaftay waxay tiri sheekh hawsha dhan anaa isku qabanay farxa ka qaad bayt aad ya loo qosli waxay tiri intii islaan yar la keeni lahaa hawsha dhan baa anaa ka fikir anaa ku filane khayr allah ku sii sheekh umar miyuu xukunto horta inuu daalim yahaa bas iska tag bayt islaanta ma jirto marka horta nin iyo xaaski laba kala dhaxgalo hawl dhib badan baa ka timaada walaa tatruka ka tagin akhilaa abika mas'ala diineed way aabbaha saaxiibadii waalidkaadu dadkii saaxiibka la ahaa ee waalidka xiriirin jiray asaguna uu xiriirin jiray ha ka tagin waliga axaadiis baa ku timid dadkii waalidkaadu jeclaa ninkii gooyee ka taga nuurkiisa ilaahay damiya xadiidka cabdullaahi ibn cumar aad mufrad ku marteen sheekh albaani saxiixin jiray kii cabdullaahi ibn salaam ee mawquufka iyo fi tawraat buu ku sugan yahay warka asaga nabigana waa laga wariyaa mawquufan wa marfuucan saxaabada badan salaf badan baash ahla wudda abika hagoynin fayudfi allahu nuurak nuurka ilaahay ka daminaya wax ku shid mahaya ma jiro ولا تترك كتجن أخلاء أبيك أي أصحاب أبيك أبها ضدك شعلاء أصحاب أصدقاء كتجن والد كلهم بالوجهه فإن أخلاء الأب أبها صاحب ذي ميراث للابن أبها صاحب ذي وميراث للابن وولدك حلك يسوي وهنتو أبها أبو ريوي والدك صاحب ذو السمي يدك جعل كايا كحدنا يا معارف تبلادنا ودحلوا كاجتك محضو بيلين دحلوا أبها كاجتك وي وبيرك وأبو ري وش في عمبك وهيا دي بو فيريا رجع والدك في عنو أي دليل إلى يومنا هذا وحد أركيس الدقيق كل حريرنا أبها هبل بانو صاحبها نينك وين هبل ولي كان أروح ما ترن أقوات سلام أقول ما تجين أيها هيلب يوجه معرفة إلى لي مركز حل يهنتو أبو ريوي علاقات كاجتماعية صداقات كدق وكتجي هو أي كتجتي إلى لي أكو خباري أديك إله النور كاد مني ولا تأمن من أعداء أبيك سيدوك لأبها عدو جيسي هكأمن نقونين نينك أبها عدو أها أدوكم حقوق سميرية نينك عدو أنا هم بعد عليه حيد كيسجو ترن كيسجو لا دقالك وكسر سوجنية وهلس
ولا تدخل هدحقلين ولا تتكلم أنا كهل بين المرأة وزوجها نني حاسك لما كان دحقله والخيركم قبطه ورسود القاطة كركاسة لا دبل جوكتيه هوسلو مدقو maxaa yeelay waxa laga yaabaa islaantu xisaabaadaan ka bixi karin inay sheegto odayguna asna uu ka daro marka kor baa la iska geed sarwaab baa la noqdaa hoos looma tago marka inay duruuf kaliftaba mooyeen walaa tadkhul ha galin walaa tatakallam ha ka hadlin bayna almar'ati haweenay iyo wa zawjaha ninkeeda lama kala dhexgalo allahuma inaad ku qasabnaato mooyee قصة طريفة يا بريان لو ريتشيا وهذا كورنا ترجمة الشيخ كأخري شيخ الباني وذلك عدنان عرعور لو ننجري وحكى شيكي ما مضي حاسك ويناي شيخ الباني وحاسكون على الشيخ حنا سد الباني شيخو مرتب بدن بولها أصحاب بدن بولها دليل يدبر لوجا إيمانيي مكتبات وين ومساجد بكوين بوهايستي نظافين maanta in nadiifiyo la goglo martida la sooro wax loo kariyo la qaabilo culays bay gabadha ku noqotay waana weynaatay maamadii ayday sheekhi baa isqabtay hawshu waa adkaatay sulxi baa looga baahday in la dhaxkalo adnaan calool sheekh ardaygiisa baa loo yeeran ka dhaxkal ayuu yiri wuxuu ku hormaray maamadii buu hadal xaaski sheekhu yiri hadal شيخ الباني وحنا قلت أنا مدعي ودب شيئا أيوة مدعى عليه أنا قلت هذا يقول بالله ما يوحولي قبل أن بالله بهاي حكم بعد قدقتين قرت إيدا شيخو حروقي بقى النقطة أرض النقطة قرت أنا إيدا سو حكم ميها حربانا أيضا قبل الله بهاي هذا هو ظلمي صح هذا يلي إنه وين ذكرت بهاي ما يبل وضبوري أرض إن هذا بعض نقطتين قبل بقى هذا الشيء gabadhi warkii markay dhamaysay iyo cadnaan curcur wuxuu yiri sheekh albani oo dhaalim baata oo ma ana dhaalima hadaan iga dhageyso waxa la rabaa inaad muddaciga dhageysato muddaciga dhageysato hal dhinac baad dhageysatay goormaad xukuntaa waan ku xukumay dhaalim baatay saa xukunku ku qaadan soo aan ka taga waan qaatay buu maxaad xukuntay laakiin waxaan xukumay gabadha waa dulantay shaqaysa ka bixi karin baad la timid hawlo badan baad la timid ina caawisana waa diiday waxaan kugu xukumay xaas labaad inaad guursato oo maamada caawiya maktabada iyo martida soo dhaweynteeda iyo shaqaalaha iyo hawlaha qabata ayaduna guriga iyo carruurta waaweyn ha ku ekaato dhaalim baad hawl ka badan baad ku mashaqaysay maamadii gabar yar wanaad keento islaanti masayr baad taaftay waxay tiri sheekh hawsha dhan aan isku qabanay farxa ka qaadbayto aad loo qosle waxay tiri intii islaan yar la keeni lahaa hawsha dhan baan ka fikir anaa ku filane khayr allah ku sii sheekh umar miyuu xukunto horta inuu daalim yahay bas iska tag bayt islaanta ma jirto marka horta nin iyo xaaski laba ka dhaxgalo hawl dhib badan baa ka timaada wa bayna tilmiidi wa ustaadihi شيخ يا أرديين لما كان حقله يعني حكم شرعي يريد كموسى تلاقي وحوض معينه وهوش كل ليه حكمة واحد قبل حكمة وحكيني زمرك قاركوت إن هذا فرسمك لو هوش النبي الله سليمان ويري كان مدي أيدين كله جوي ويلكي طيب وبين التلميذ واستاذه الشيخ يا اردقي لما كان دحقلو واويلي والدكي هديه wax badan baa ka dhaxeeya marka sulxin baa lagu wadaa war hawsha dhameeysta kada waradu sheekh baati wiilkuna urwiil waa abaha ka amar qaab wa bayna al-abd wa mawlah adoon iyo sayidkiisa lama ka dhaxgalo wa bayna al-ab wa ibnihi waalidi ilmihi lama ka dhaxgalo ayaga ku fiican hawshooda xalistaan waa la suwaaniya suguud laakiin gar iyo xaaje lagama dhigo oo fiirsada reeraha wada dhashay iyo xigaalada ninkii gar dhax dhiga uu kala goynaya uu isku dilaya wax looba way waa la soo celiya qaraabadka xaaje gareed lagama dhigo geed lama geeyo